goobtan aan hadda ku suganahay waa Jaamacada Hargeysa ee magaalada Hargeysa waqtigu waa 7 iyo barkii subaxnimo hadda gadaasheeda sida aragtaan waxa imtixaan ku galaya ardaydii seniorada ama sanadkii ugu dambeeyay ku jira Jaamacada Hargeysa walow uu saameeyay xanuunka COVID-19 goobtan hadda aragtaan waxa fadhiisan jiray oo imtixaanka laga qaadi jiray arday 3,000 oo arday balse maanta sida idin muuqata waxa fadhiya 150 arday iyadoo lagu hortagayo ama la dagaalamayo caabuqa COVID-19 ardayda halkan imtixaanka ku galaya waxa lagu xujeeyay ama ku xiran inuu arday kasta gacmagashiga iyo afgashiga uu soo qaato mas'uuliyiinta jaamacadda ayaa inaga warbixin doona dadka kale ardayda soo galaya jaamacadda ee markay ka soo galayaan albaabka waxa la baarayaa xaraaradooda ama xumadooda iyo temperature-ka jirkooda inta uu yahay waqtigan ay ardaydu ku jireen imtixaanka isla markaasina u fadhiyeen ayaa waxa Jaamacada Hargeysa soo booqday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Deriye Toorn oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo sidoo kale agaasimaha tacliinta sare ee wasaaraddaasi madal kooban oo mas'uuliyiinta Jaamacada Hargeysa ay kaga warbixinayeen qaabka ay imtixaanka u qaadeen ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha xafiiska imtixaanaadka Jaamacada Hargeysa Professor Cabdirashiid Gaxnuug sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee Jaamacada Hargeysa Maxamuud Yuusuf Muuse waxaanay ka hadleen qaabka ay uga qaadeen ardayda Jaamacada Hargeysa imtixaanka walow uu jiro xanuunka coronavirus iyo sida ay uga hortageen hadaladoodina waxa kamid ahaa soo dhaweynayna wasiirka waxbarashada iyo sayniska wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee waxbarashada dhammaantood iyo tiimka waxbarashada ee nooga yimid wasaaradda aad baan u mahad celinaynaa sida ay noo yimaadeen saaka wax yar oo kooban baan tilmaamayaa hadal badan ma oranayo hawl baa lagu jiraa runtii waad aragtaan shaqada si ay u socoto saaka waxaan ku bilownay 2 fakal amba 2 college ardayda halka fadhida waxa weeyaan waa college-ka engineering-ka halkaas aanu gelin waa 160 arday qiyaasihii 2 meelood oo kalena waa lagu gelayaa college-ka leedo ICT-da hoolka weyn xidhay oo la joojiyay waxbarashadii tooska ahayd 18 bishii March ee saddexaad markii uu soo baxay qaraarka dawladda uu ka soo baxay ayaa la joojiyay wixii inta ka dambeeyay waxa lagu dhiganayay online ayaa lagu waday waxay soo gaadhay hadda semesterka gabagabadiisii markay gaadhayna waxa la yiraahdaa la qaaday imtixaanaadkii waxa lagu bilaabay sida la tilmaamay ee ka soo baxday wasaaradda iyo gudida sare ee la dagaalanka cudurkan ardayda senior-ka qalin-jabineysa marka lagu soo koobay waxaana la fuliyay dhammaan tilmaamihii gudidu ay soo saartay xumadii wata albaabka lagu soo jeegareynayo ardaydii caafimaadka qaybtii ferrisaidka oo la furay waxa loogu talagalay hadii qof xumadiisu ay sareysan la arko goob laga qaadayo loo sameeyay ilaa hadda wax kaysana lama arag oo lama maxaa ku dhahday registeraynin geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Deriye Toorn oo iyagu halkan kormeer ku yimi indhayna si ay u eegaan qaabka ardayda imtixaanka looga qaaday ayaa waxa ay qireen in mas'uuliyiinta Jaamacada Hargeysa ay ka hortageen xanuunka COVID-19 isla markaasina ay awaamirtii wasaaradda waxbarashada soo saartay ay raaceen hadaladiisina waxa kamid ahaa marka waxaan soo aragnay ardaydii oo sidii protocolku waxa u qaadaysa looga qaadayo oo milabo mitri isu jira dhinac walba oo qof kasta uu xidhan yahay maartay uu xidhan yahay afsaabkii ama face mask iyo gacmagashigii macallimiinta ilaalinaysa iyo shaqaalaha ilaalinayo iyo ciidanka booliska ee meesha jooga ay dhamaantood wada xidhan yihiin marka jaamacadaha kalena waanu mari doonaa intii aanu gaadhno sidaas oo kale ayaanu iyagana ka rajaynaynaa waxay tani muujinaysaa in haddii uu sii socdo xanuunkani ilaahay baa inaga dulqaadaya in aynu heli karno qaab aynu imtixaanada aynu uga qaadno qof walba ama heer waluu joogaba waxaynu helinayo kale ka muuqata fursad inaynu dhigan karno jaamacadaha iyo dugsiyadaba iyadoo la samaynayo waxyaabaha ka hortagay imika ay Jaamacada Hargeysa samaysay ka soo baxeen ayaa telefishinka 5 Somali TV wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadan imtixaankaasi laga qaaday iyo qaabka looga qaaday ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa aniga badqabkooda tiyo laga hortagayna in ardayda qalin-jabineysa imtixaankooda laga qaado wax la siiyay markaas habkii distance-kii baa la fuliyay galofisyadii iyo wixii necessary-ga loo baahnaa ayaa la qaatay galofisyadii iyo afkii la xidhanayay alxamdulillah imkan imtixaanka si habilay oo laga soo baxnay ilaahay baan mahadnaq weydiisanayna noo suurtageliyeen imtixaankaasi si fiican u galno sheegtay farwaajisay engineer baad tahay xagga electriga
waxaa jira caqabado suuqiya oo in hawshaas oo kale dadku kaliya qaban karaan bal ka waran waad qalin-jabineysaa shucuurtaada iyo helitaankii shaqo horta anigu alxamdulilah markaan year 3 ahaaban suuqii sii galay ilaa qaybtii leedhka baalihii leedhka talasom baaruunkan internship baan baawar ugu shaqeeya alxamdulilah waxaan rajeynayaa inaan noqon doono tusaale hablaha u hiigsada inay qaybta korontada ka shaqeyn karayaan insha Allah waxyaabo badan ka bedelan doono systemka magaalada ka jira anagoo leedh jabanna sameyn doona shirkado noo gooniyo hablaha ana sameyn doona insha Allah waxa la idinku xiray imtixaanku wuxuu kaaga duwanaa imtixaanadii kale horta imtixaanadii kale wuxuu kaaga duwanaa horta system markayga jaamacadda Hargeysa systemkeedu waa adag yahay waxaad ku talagaysaa inaanu qosh lahayn system de xor iyo xalaala tii la oran jiray oo kala tan wuxuu kaga duwan yahay systemkii kala fogaanshihiiba ayaa mitiradii lagu kala fogaanshanayba kala duwan safety-na waa noo xidhan naqaskiiba waa wax kala ofiisiina xawla noo xidhan alxamdulilah boqor Axmed Cabdi telefishinka 5 Somali TV magaalada Hargeysa